maalmaha ka mid ah gabadh ayaa waxay soo gashay cusbitaal dad badani buuxo madaxeeda ayaa waxaa ka dhacday buruko ay sidatay oo bedel u ahayd timaheedii oo horey u guuray dadkii oo dhan ayaa ku qoslay maadaama ay arkeen in madaxeedu xiiran yahay oo timo buruko ay wadatay wiilasha ka mid ah dadkii meesha joogay ayaa intuu burukadii u soo qaaday madaxa u saaray kadibna intay ooyday oo ilmaysay ayay waxay tiri ma dembi baan leeyahay miyay timahayga u kaxeeyay ilaa kansar igu dhacay oo rabbi ii qadaray mooyaane hadday ogaan lahaayeen in kansar ku dhacay gabadha oo timaheeda uu ka qaaday kuma ay qosleen sidaas la mid ah wiil arday ah oo dugsi dhigta ayaa markasta macallinku diri jiray marka uu quraanka garan waayo wuxuuna ku oran jiray hooyada ma ahan hooyo wanaagsan oo si fiican kuu daryeesha sababtoo ah kuma soo diyaariso casharka aad buu murugooday waxa uu tagay qabriga hooyadii waxaana uu ku yiri hooyo maalin kasta macallinku wuxuu yiraahdaa hooyada waa hooyo xun oo casharka kuma soo diyaariso mararka qaar hadalku waa mid dilaa ah oo dhibaatooyin fara badan u geysta qofka aad hadalka si fudud ugu tiri haddaba intaan weedhu ka soo bixin afkaaga ka fiirso waxa aad leedahay ha weydiinin agoonka sababta waalidka u dhintay hana weydiin waalidka ilmahoodii siday u waayeen midka miskiinka ah ee aad daryeelay sida u baahan in wax la siiyo ha su'aalin inaad wax siiso laakiin adigu waxba weydiinsi midka martiga ah ee ku soo booqda ha ku oranin ma kuu keenaa waxaad cunto iyo waxaad cabto markasta hadalkaagu ha noqdo mid miisaaman oo ku habboon meesha aad ka hadlaysid haddaba ka fiirso weedha afkaaga ka soo baxaysa adigoon ogeyn xaaladda qofku ku sugan yahay bishaaro waxaa loogu bishaaraynayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee daafaha caalamka joogta in markaska Al-Hidaaya Islamic Center uu diiwaan gelin doono arday cusub markaskan ayaa waxa uu bixiyaa duruus ay ka mid tahay aasaaska diinta Islaamka sida higaada Qur'aanka oo hab tajwiid loo barayo caqiidada barashada farteena Soomaaliga ee dhaqanka iyo in waliba salaada laga saxo iyo waxyaalaha caqiidada ku tacalluqa sabab haddii aad u baahan tahay waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarkan aan kuu sheegayo +2529054445550 aad baa u mahadsantahay